وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإن سلام يا دمان ولا الله الصومالية ذي كتسا شركة اللي درس كما شكو جرودان وقتي نقالي قاعد صورتين عدكي قوالا مقاهم علينا يا كرالي هذا عدكي حقاير هذا وصلاة صبح واي هذا كسو كعي runtii walaalayaal horta rikaabka wiigan wuu iska gaaban yahay wax oo hadda oo extra ma jiraan kordhintaas oo la isku kordhiyey oo uu ku daray maaragtay walaalaha hadda lacagta dhiibayana maaragtay saddexdooda bilood meesha uga bilaabanayso iyo kuwii hore u dhiibtay oo loogu daray bishaas faa'iidadeedu waxay tahay runtii hadda bil kaliya maaha 3 bil iyo 4 bil oo kaleeto hore aan u soo haysanay waa 8 bil ayuu dhahay aash ayaan maaragtay runtii $143 kusoo isticmaalaynay oo connect oo aad aragtaan hadda maanta wuu dansanaa in maanta jagligii hore dhan wuu dansanaa waxbaa lagu dardarayay waxyaalo badan oo cusub baa lagu soo saaidinayo maalin walba wax cusub baa lagu daraa maalin kadib soo fiicnaanayaa hadda waa aragtaan uu degan yahay xogaa yar dadka unbaa maaragtay qadadkaas ma ahayn intiisa badan uu fiican yahay maxamed aniga warkiisa waa dhaafay iyo rikaabkiisa hal eray oo muhiim ah raba inaan rikaabkaas laga yaabo inuu ku daray in kale ma garanayo ma joogin waxaan maqlaayay walaalo lacag la baxay oo Soomaaliyadan ognahay oo muddo sugayay 300 400 500 waxay la baxeenba aan sugayeen muddo marka lacagahaasu kuwa hadda la dhiibayo oo beryahan ilaa jamca ka siiyay inay tahay umaleynaya mata maqanaha markii la soo daayay hadda markii la soo daayay maxaa leedahay kaararka la soo daayay maalintiiba way siyaadaysaa dariishad yar ilaa lama rabo wixii inay mar walba ay isku maaragtay xuliga dadka iibsanaya darteed ay maalin walba ay jabaan lama rabo ama oo maaragtay jam noqdo marka dariishad yar ayaa fureed lagu bilaabay aniga 3 account aan iibsaday accountada iyo sana 3 account aan maaragtay aan chance u helay dhowr mar uu diiday laakiin taas macnaheedu maaha inuu shaqeynaynin uu shaqeynayaa marka wuxuu isugu xigaan markii lacagta la qaado lacagihii kaleeto oo dadku ay dalbadeen waa la dhiibo marka waxa soo siyaaday uu sheegay Aish Canada wadanka Canada iyo Europe qaarkood dad badan ayaa waxay ku dalbadeen crypto ku dalbadeen walletka in lacagta ugu soo dhacdo la marka hore crypto unba shaqeynaysaba kaar ku xogaa yar gadaal ay ka ahaayeen in bangiga qofka lacagta loogu shubo wixii uu dalbaday iyadoo si manual ama maartay qof bini aadan oo verification ku sameynayo oo cadeynayo bal in waxaan ay isleeyihiin marka cryptodii ugu soo horeysay cryptodii marka company-ga ugu badnaayo la isticmaalayo waxa la dhahaa Caracan marka wuxuu dhahaa Caracan waxay isqabsadeen oo maartay waa la xiray shutdown lagu sameeyay marka walletkii lacagta lagu dalbaday waxay dhahay on passive macnaha waxaan shaqeeyay lacag lagu mushubi karo shirkad oo la xiray oo maartay oo ay haystaan Security Investment Exchange Commission ay haystaan oo America iyo North America dhan laga xiray marka wuxuu yiri waxay u maleeynaa oo yiri in naqad doonto in wixii dhan bending ahaa lacagii bending ahaa oo dadku ay dalbadeen in delete lagu sameeyo oo ay mar labaad soo codsadaan marka mar labaad markay soo codsadaan qaabka ay u rabaan haday bangi tahay iyo hadii ay cryptocurrency wallet kala tahay ama Binance tahay ama ani other wallet kaleeto oo ay rabaan in lacagtooda loogu shubo si markaas xool oo automatic aan ugu shubno goormay dhacaysaa marka within the next 2 weeks ilaa iyo December 15teeda 20keeda wuxuu yiri waxaan jecelahay in runtii maaragtay ay dadku waqtiyadan fasaxyada la aadayo Christmaska iyo holiday-ga iyo iskuulada la xiraayo in maaragtay dadku ay jeebkooda lacag soo gasho ayaan jecelahay oo yiri marka dadaal badan oo ku muujin waaya meeshaas runtii waxa kale oo iidan muhiim oo ka dareemay hadii aan qaldanayn in UPI wax la dhahayo oo dhinaca hindida oo sahlaya maadaama hindidu ay yihiin dadka ugu tirada badan oo shirkadda 65% dadka ka tirsan oo founderska oo lagu soo bilaabay ay iyaga yihiin لازم lacag badan ay dalbadeen
lacagaha si loogu fududeeyo iyadoon qofna u dhaxaynin dadka shirkadda iyo dadka aan qofna u dhaxaynin oo laga qaadanaynin 10% 5% laga qaadanaynin sidii loo sahli lahaa wuxuu sheegay wax la yiraahdo inay jiraan UPI oo Unified Payment Identification something like that waxay u taagan tahay marka UPI daas oo direct bangiga iyo qofka accountkiisa toos ugu dhacaysa I think inay tahay midda oo isticmaalaan Soomaalida hadda oo lacagaha lagu tuurtuurayo telefoonada inay tahay camalan u malaynayaa ma hubo laakiin wuxuu yiri UPI daas waxay u taagan tahay Unified Payment Identification ma aqaan marka maadaama waxaas oo dhan laga hadlaayo oo maaragtay uu leeyahay maaragtay 200 oo bangi oo adduunyada kala joogan ayaan maaragtay xiriir la sameeynaa hal ma aha laba ma aha processorska oo la badinayo bangiyada ila maadaama dadkan ay 200 wadan adduunka ay ku kala nool yihiin qof walba huba ashma farax oo isku dayayaa inaysan dhaqanin kaliya kuwa western world jooga Europe jooga North America iyo Australia jooga oo iska systems ka degan haysta mooyaan dadka in iyagoo tuulooyinkooda jooga maaragtay inay heli karaan teeda kaleeto on baasif xalka ay raadinaysaa huma aha inay mar walba lacagta fiat-ka ah bangiyadan tuugada oo fiisa qaada inay maaragtay daba taagnaato iyada ayaa laga yaabaa inay adduunku wuxuu isku bedelayaa digitalization currency digital oo noqonaya bini'aadamkii digital idea loo sameeynayaa shaqadii iyo ganacsigii dhan digital oo noqonaya everything digital u gudboohayaan marka blockchain oo baasif nutkeeda inay blockchain saaka waxaan dhegeysanayaa Mark Ellis iyo Masi Digamo iyo Zoom yaron ku jirnay oo aday ilaa 25 qofood heeda aan ku jira dhegeysanayo marka in qofka xorriyada la siiyaa xorriyadu ma aha in lacagta hesho lacagta waa lagu siiyay laakiin lacagta inuu meesha ka soo galeysay adiga in qof idin dhaxayso yaa u dhaxeeya dadka marka dadka waxa u dhaxeeya oo eejada ku haya waa dadka nimanka lacagta adduunka maamulo waa bangiyada see looga baxshaa bangiyada meesha bangiyada inay meesha ka baxaan oo qofkii wax dhiibay oo noqdo qof wax haysta oo digital wallet haysta oo lacagtiisa wax ugu jira aan la ogeynin oo aan la dhahin adiga kontonka kun inta ka keentay 100 kun inta ka keentay canshuur ma ka dhiibtay inta ka soo gashay musuqmaasuq ma ku heshay ilaa bangigaaga hadii la maamulo qofku u jeedo uu maamuli kara qofku bangigu mar walba uu arki kara account-kaaga wax ku jira ilaa shaqaalaha ka shaqeeya laakiin marka ay shaqadu dhaqato blockchain digital wallet ay noqoto wixii lagugu soo tuuro adaa iskale wixii dhil hor rabta ka tuuranaysaa markaas ama kaar ku tuuro oo derbi kala bax marka ashma farax iyo on baasi waxay mar walba wuxuu iska bilaaw laakiin meesha loo socdaa waxay tahay in la fududeeyo dadku inay lacagtooda ay si sahal ku soo gaarto lacagaha yarka iska bilawga commission-kaahu waa bilaw laakiin heer waxa la gaarayaa dawladeedada dhimaado ay tahay dadka anaga aan ka mid nahay oo hormuudka ah oo shirkadan bilawga ka ah in iyaga marka hore marka eejada laga fujiyo oo noloshooda ay kaamilaan oo guryo ay helaan oo baawur ay helaan oo xorriyada waqtiga ay helaan oo xorriyada lacag ay helaan ujeedadii loo sameeyay waxaan dhan waxay ahayd inaan helno lacag waxaan u baahanahay in ka badan si aan dadka bini'aadamka oo adduunka ku nool kuwa noogu dhow ka bilaaw aan ku taakulayno oo aan maaragtay isgaarsiino dhaqaalahan iyo lacagaha adduunka iyo kheyraadka ilaahay nasiiyo oo naga badan inaan isgaarsiino oo aan bini'aadamka saas loogu bedelo waaba ujeedada dhan loo sameeyay ma aha ganacsi caadi ah ma aha mid ashma farax dantiisa oo uu sameysanayo ma aha rafaadkan iyo waxaan dhan wuxuu u marayaa waxay tahay inuu bedelo qaabka ganacsiga adduunka iyo in wax yar la dhiibo wax weyn jeebka lagu shubto waxaan naqanaa shirkadaha adduunka iyo ganacsi walbaahuba inuu waxaan qiimo lahayn qofka shakhsiga ka iibiyo siiyo ugana bedesho lacag badan oo jeebkiisa gacanta la galayo marka way socotaa wuxuu yiri 3000% kalsoonida ka muuqato ma dhihin 100% 200% ma dhihin wuxuu yiri it will be done 3000% waa lagu howleeyahay haddaba arkaysan ninka oo maxaa leedahay Charles Osong oo ka mid ah liidarada waaweyn oo Cameroonianka maalin hore uu baxay 5 bilood oo wuxuu u socday Africa tour 5 bilood shaqo loo diro waay inuu maaragtay leemis kullu uu soo xiro meeshii taaba hab ka bilaabo Cameroon oo wadankiisa ka bilaabo laakiin laazim uu tagayaa South Africa East Africa meel buu tagayaa insha Allah ninkaas waa nin maaragtay aad iyo aad ugu dhow dadka la soo bilaabay waa binaaradii
founderada lagu soo xareynayo oo fursadan lagu faafinayay dadkii sheegi jiro kamid yahay ilaa 4 sano ku jira shirkadan marka way isbedelaysaa maalin walba waxba isbedelaya jooga waxa nagu soo foorli maanta waa December 2 jooga aniga ay 3 December 2 waaye ash bomma nagu soo socdo waa ogeey 360 hadda markii oo see you soon ama mar dhawaan isarki doonaa markay dhahayeen I'll see you next time ama marka dambe isarkayna Wednesday 360 ma ah that means oo ma ahayn oo in arbacada dambe arki doono ka soka in qata laga yaabo hoo dhahay ya marka macnaheedu waxa waaye wax badan oo aanan ogeynin runtii ay on passive diyaarinaysa daaha gadaashiis wax walba oo ay sameeynaysan waa horumarkeena on passive iyo nimanka la shaqeeya ashma faraxna way og yihiin wax walba barasho waaye caqabad maanta haday kugu dhacdo oo qodax jidka lagu dhigo challenge waaye challenge-ga waxa waaye qofku inuu face gareeyo waaye sida uga wareegta ma ka talaabsanaysa ma dhinaca u jiidaysa ma kormaraysa wax walba obstacle oo banaadka adduunyada kugu yimaado waa inaad taqaana qaaba ugu gudubto marka waxaan aad iyo aad ugu kalsoonahay ash iyo dadka la shaqeynaya wax walba oo caqabadaha ku hor yimaada inay ka talaabsanayaan ay iska jiidayaan oodaha jidadka loo dhigayaaho wax walba ay sameynayaan waxay u sameynayaan horumarkeena waxay u sameynayaan sida ay anaga kor noogu qaadi lahaayeen ka bacdina anagu aan bini aadanka inta soo biiri doonto on passive gadaashayna inta ku soo biiri doonto oo aan hormuudka u nahay inaan tusaale u noqon doono maaragtay inay wanaagsan tahay mar walba inay wanaagsan tahay in si daacada loo dhaqmo si maaragtay qalbiga wanaagsan wax walba adduunka yaalana ay naga badan yihiin nabadna lagu wada noolaado ujeedada iyo hadafka dhan waa intaas digital kana waa ogtihiin waa bilowga on passive waaye on passive wax badan ayaa kaydka maaragtay ugu jira oo invention ama maaragtay hal abuuro aan caadi ahayn oo adduunka qabsan doono oo muddo badan laga sheekay doono ayaa jeebka ugu jira heer waxa la gaarayaa on passive sharci miya iyo scam miya iyo wadaxal loo dhigaa iyo wala carabaha iskale iyo nimankii cidda yuhuudaheeda maaragtay haddii ilaadkeeda leeyahay talaabo dhiga maya heer waxa la gaarayaa baahida loo qabo waxay wado darteed ay lagama maarmaan tahay meel walba in laga soo dhaweeyo ay ku qasban yihiin qofku markaad waxaad u baahan tahay uu haayo si walbaad u neceb tahay waxa waaye waa ku qasban tahay inaad mar walba la diirgeliso markay baahida aad qabto marka meel fiican aan joognaa walaalayaal waa alxamdulilah rabbilcaalamiin waxba yaan la isku burgunin waxa kaleeto idin sheegayaa walaalaha hadday jiraan mar walba u sheega dadka ha loo sheego marka aad walaal diiwaan gelinaysiin oo aad link la share garanaysaan ha la ogaado aqoonsiga shirkadan waa email gmail la'aantiis wax soconaya ma laha ilaa hadda gmail markee waxa lagu soo dirayaa verification ilaa on passive ay keento oo mailkeeda heer kaleeto la isku verify garay karooto oo haddii passwordku ka qaldamo ama emailka ka dhumo linki kaleeto lagu baagarin karo backupka gmailka waa dhibaato haddoosan kuu furmaynin qofka markuu isdiiwaan gelinayo u sheeg waxaa tiradaa war gmailkaaga iska hubi markii hadhowto hadduu passwordka ka dhumo ama lagaa jabsado linkiga waxa lagu soo dirayaa recovery emailkaas marka taasna waxa waaye waa dhibaatooyin ka jirto tada kaleeto shalay bilaabataan u malaynaya waagii google-ku uu tirtiraya emailada 2 sano iyo wixii ka badana ma jeegarayseen gmailadiina email ma u dirteen idinkuma isu soo dirteen taasna waa su'aalaha idin weydiinaya qof walba tiimkiisa ha u sheego meeshan waa hadal isgaarsiin waa in la isgaarsiiyo dadku isma wada yaqaanin marka qof walba qofku yaqaan inuu gaarsiiyo waaye kaliga inay sheekadu inaysan mar walba naqan waa waxa dhan oo aashma farax u dhaayay mar walba oo dadku u sheego mi aniga kaligay su'aal aad ogtahay jawaabtooda qaladaad aad u jeedo inay saxsaneen in laga jawaabo ay u baahan tahay waxyaabahaas oo dhan haddaad dhigaha ka xirato oo afka ka xirato macnaheedu waxa waaye aniga okay aan ahay waaye waxa umar baahan maya saas maaha qalad haddaa aragto waa ina saxdaa tala wanaagsan haddaa aragto waa ina sheegtaa qof caawinad u baahdaan ina caawisaa hadallada ina isgaarsiino waa anaga dhan see lagu ogaanayaa wixii cusub waxa cusbeen lama ogaa karo waa in warka la isgaarsiiyaa waaye always active hala noqdo uma jeedo hadda tirada dadka meeshan ku jirta ma aqaan ma ay muuqato laakiin runtii aad iyo aad u degan yahay maalinta ka dambeysa oo connected
ujeedin uu soo ficnaan u haya marka soo dhawaada walaalayaal intaan wax ka tegey waxyaaba muhiim ah aan ka tegey ma jiraan aan xasuusanayo laakiin dhib malaha waa kusoo noqonaya haddii su-aalo jiraan waa ka jawaabayna haddii kaleetana meeshaas kusoo gabagabeyna we're excited waxyaalo badan isdaba yaala December is going to be the big night next year hadday bilaabto janaayo inkastoo waqtigu isku ordaayo haddana way on passive waxa waaye waa maran dheerayn waxa waaye lacaguhu hadday soo daataan cirku waa buluug cadku waa isa soo xiray inuu roobku soo daato kaliya dhiman roobku hadduu soo daatana waxa waaye dee dad badan oo maaragtay oo gadaal u jeejeysanayo waxa waaye indhahooda fuulo waa la arkayo oo soo jeesanayo markaas the reality dadku waxa waaye waa runtay ku kacaan lacagtay ku kacaan dadku markay arkaan boqolaal qofood oo Soomaali kaliya ma ka hadlaayo waxaan ka hadlayaa dad badan oo waxa jiro oo ajnabi badan oo maaragtay mar walba maaragtay on passive arintii on passive laba sano dad ogaay on passive oo ilaa hadda ku dhahayo on passive qofka rabta inuu ogaado waa very clear caad xataa ma qari karo website-keeda haddaad tagto oo aad AI-deeda ML-keeda iyo blog-geeda aad akhriso oo YouTube-keeda aad tagto oo wax walba samaynaysa akhriso oo product-geeda aad akhriso boqolaal luuqaday ku taala qof walba luuqadiisa uu ka helayaa it's very straightforward laakiin qofku wax gadaashiisa yaala ma arki karo hadduusan garabkiisa gadaal ka feerin see ku ogaane madaxa gadaashiisa indha kuma lihi ma arki karto wax gadaashaada yaala saas waaye on passive waxa inaad ku mashquulsad akhriso garato ka bacdi waay iyo waxa jirto waxa de ilaahay uusan kula rabin oo wayba kuu qorraynba inaad ka ceeshto ma arkaysid si walba lagugu sheego waxa waaye negative mindset ku hortaagan marka dadna waa noocaas dadna waqtigii ay ku ogaa lahaayeen ay galeen isku soo duuduub sheekadii oo dhan waxa waaye haddee waqti qof walba waqti uu soo gelaa dadaa markay arkaan street hore ka aaminay dadaa markay laba maalin ay la joogeen ka bacdi fahmay daday sanad ku qaadanay dadna waaba dadkii fikradda keena oo waxaan dhama soo dheeraaninayo ilaa 6 sano marka qofba heerow joogaa marka dambe ilaa ay wixii naqdaan dee wax sida Google camal ay naqdaan oo dadkii ay wada arkaan oo xuquuq u arkaan markaas bay wada aaminayaan laakiin inta kaleeto waxay leeyihiin iran waqti bagelinayaan marka don't worry walaalayaal meel fiican aan joognaa kuwa soo aaminay on passive ee u soo safray ee muddo ku jiray wuu ogyahay AI-du waqtigaas soo gasho ogyahay inay wax iibsato ogyahay how excited meeqa joora website ka booqataa uu ogyahay oo iskaaga meeqa joora furtaa uu ogyahay how active you are meeqa qof wada furta uu ogyahay daatada way hayaan haddii la yiraahdo maanta war halkan milyan 2 milyan oo qof meeshan ku jirto oo customer iyo founder waxay rabaan ahaadaan ku jiro meeqa ayaa soo booqato oo iskooda maalintii imise ayaa oo meel dirta imise ayaa oo net wax ku qorta they have all the data 500 kun qof wada isbuuc hore oo meel dirtay 300 kun qof wada isbuuc soo dhaaf oo net wax ku qortay waa la ogyahay wax walba waa la ogyahay marka if you active waa ka tirsataa waqtigan waliba waxa ugu sii fiican taas waa waxa kale oo muhiim ah package kan oo connect ee iibsanay waqti xaadirkan shirkadda on passive ay soo baxayso oo ay tahay customer-kii ugu horeeyay aan nahay package kan wax ka iibsaday waxaan nahay bodagaar u tum isku mid ma nihin dadka kaleeto markaan waxaan ka hadlayaa saas waxaan ka hadlayaa ma aha founder iyo ma aha we all customers customer la kowsaday 3 bilood ee package-ka oo connect waqti xaadirkan ilaahay cimriga ku siiyo lacag iyo barbalamkeeda waa ku daay iyo taariikhna waa ka tagay ana hubtaas taariikhna waa ka tagay lacag iyo barbalamkeeda adduunyada waa ku daay just waqti la ilaahay caafimaad iyo cimriga ku siiyo shako kuma jiro alxamdulillah ilaahay na gaarsiiyo ilaahay nabad nagu gaarsiiyo ummadda Soomaaliyeed ummadda muslimka iyo dadka dhan ilaahay khayr ha siiyo iyo caafimaad iyo nabad adduunkan ku noolnahay waa salaam ay soo dhawaad walaalayaal